waxaa runtii maanta sharaf weyn noo ah inaan degmadii Gabiley waxqabadkeedii 6 bilood ee sanadka u horeysay 2020 aan maanta halkan inta waftigayga inta leegaan soo baxnay aan ka qayb qaadano ama aan soo kormeerno mashaariic socda iyo kuwa dhamaaday oo nitaabsiiyeen oo xadhi ka jarno iyo kuwa ma la qaban doono insha Allah oo inta bilaa soo socda dhamaan doonaan dhagax dhigno aad iyo aad bay runtii farxad weyn iyo sharaf noogu tahay sababtoo ah waxa qof kasta oo naga mid oo mas'uuliyiinta aan u xilsaaranahay hawshan nin walba ku aaday inuu ka soo baxo dawladaha hoosana waa salkii nolosha oo wuxuu ka dhismaan waxa la haani gumba ka tarantaa Soomaaliya ma amaada qaranku wuxuu ka soo dhismayaa hoosta iyo magaalooyinka siyaasadda Soomaaliland qaatay ama dastuurkeenu jideynayaan waxa weeyaan in maamulka la daadejiyo oo adeegyada aasaasiga loo daadejiyo dawladaha hoose sababtoo iyaga u dhow shacabkii oo inaan ku xidhnaanin wax yar oo kasto baahi loo baahdaa inaan qaran laga sugin dawladda dhexe laga sugin siyaasadda maamul daadejinta waxaanu qaadeen 2014 mid ay reer Soomaaliland leeyihiin oo anagu aynu duruufteena ku qiyaasnay iyadoo hay'adaha caalamiga nagala shaqeeya shuruucaas maartay maamul daadejinta ee JBLG la yiraahdo ay wixii tala iyo tusaale ay siinayeen laakiin ay wax noqotay inaan arrinta maamul daadejinta ay noqotay shaar reer Soomaaliland isku taleen oo duruuftooda ku aadan lagana ansixiyay golaha wasiirada 2014 kolba awoodda dawladaha hoose oo la dhisayay oo mashruucan JBLG wuxuu dhisaa maaha lacag badan oo siyaamo degmooyinka laakiin wuxuu dhisaa aqoon buu siiyaa awoodsiin buu siiyaa wuxuu dhisaa garaadka maartay shaqaalaha iyo maamulada si ay dadkani adeegii loo baahnaa u siiyaan dawladaha hoose u siiyaan dadkooda u shaqeynayaan si ay cashuurtooda ay u urursan karaan cashuurta ugu badan u urursan karaan si cashuurta ay soo urursadaan haddana si maartay cadaalad oo degmada u siman tahay ugu qaybin karaan in nidaam cadaalad ku qaybiyaan haday maartay qandaraas la bixinayo haday wax soo iibsanayaan waxa gaarayna procurement iyo tender process baa lagu tababaray muddada mashruucan JBLG u socday laakiin se lacag ahaan waxa ka badan haday dawladaha hoose ay gartaan iyo maamulada xilka noo hayay waxa iyagu leeyihiin cashuurtii degmadooda ka urursadaba ka fara badan inta mashruuca JBLG ku kabo inta ku kaba waa sambal wixii la baray la leeyahay waxa baan ku baray 200 ku tijaabiyo ku processkii aad marinaysay cadaaladda ha ku sameeyo tenderkii ku sameeyo qandaraas bixintii kala saaristii inama cidii guuleysatay si dawladda ku dabagal mashruucii la dhamaanayo oo gunta la gaadhayo marka waxa loo dhiibaa waxa koobaneed la raba inay aqoontii la baray lagu tababaro laakiin se wax ka badan mar walba hadaynu aynu dakhli nin kasta inaga mid yahay daacad waxa ka noqdo dakhliga degmadiisa taala ka fara badan marka waxa muuqatay imika maanta mashaariicdani aan soo kormeernay in degmadii Gabiley gudoomiye golaha deegaanka iyo saaxiibadii inay maanta muujiyeen lacagtii cashuurta ee dadka qaadeen inay si wanaagsan ugu celiyeen oo maamulkii ay ka faa'iideysteen in maartay ay keenaan in cashuur badan urursadaan markay urursadeena ay dawladda ay u qaybsheen marka degmadooda u qaybsheen oo meel kasto deegaan kamid gobolka Gabiley kamid baahidiisi ay u qaybiyeen wixii ay heleen waana ujeedadii loo socday bahayd wixii dawladda dhexe soo dhaadhicsana waxa weeyaan adeegyada imkaan soo marnay caafimaadka iyo waxbarashada inay hantaan tiino way muuqataayo in caafimaadkii hantaan oo maanta caafimaadkii asaasiga in la wareegeen oo maanta ay rangareeyaan ama ay wadayaan meelihii hooyada dhalmada iyo dhallaanka MCJdii in dugsiyada hoose maarta ay maamulaan sababtoo ah dugsiyada hoose dhexe iyo xarumaha caafimaadka dhallaanka iyo hooyada
waa inta loo soo dhaadhiciye la yidhi markaa inay iyagu ay la wareegaan maadaama iyagu ay u dhow yihiin si adeegii dib u dhac ku dhici lahaayee waqti badan laga sugnaa dowladda dhexe iyagu garab yaallaaye ay wadaan tiina way runtii gabiley aad iyo aad ba u muujisay markaa inay dhismihii dhisaan inay maaragtay ay qalabeeyaan inay weliba ay socodsiiyaan sababtoo haddii dhismo meel laga taago oo aanan la socodsiinin dee dhismo waa iska khasaara waxaa mar walba loo baahan yahay hawsha intaad wadi karto eed berri sustain garayn karto in la qabtaa qurux badan haddaanad imika haddaad konton dhismo dhisto ood kontonkii berri wadi kale wax ka wanaagsan dee 20 dhismo aad waddo ood sustain garaynayso ood shaqadiisii iyo shaqaalaheedii iyo qalabkeedii laga adkaado yaa qurux badan marka runtii waan aad iyo aad baan ugu hambalyaynaa runtii degmada waxqabadkooda muuqda ay qabteen waxaan leenahay dhammaan degmooyinka waa wax laydinka rabo inta laydinka rabaa ee laydiin doortay ee xilka laydiin saaray waxa weeyaan degmo walba inay resourcekeeda intuu kolba taalkeedu yahay inay ku shaqeeyaan oo soo saaran cashuurtooda urursadaan ka faa'iidaystaan aqoontii waa la baray runtii oo maanta degmooyinka weliba 8 degmo oo dal ka mid ah aqoontii waa lagu shugay sidii maartay dhaqaalaha urursan lahaayeen sidii maartay nidaam cadaalad ku qaybin lahaayeen waxaasna waa la baray aqoontiina ka faa'iideeyeenoo ay kobcaan baa loo baahan yahay marka waxaan ku boorinayaa dhammaan dowladaha hoose meel ay joogaanba inay maartay hawsha xilkooda gutaan dowladda dhexe waxay diyaar u tahay mar walba wixii sharci siinayna in loo soo dhaadhiciyo kolba awooddooda intay qaado iminka maamul daadejinta saad maqasheen waxaa lagu soo dhaadhiciyey waxay xaq u leeyihiin maayarada inay maamulaan dhammaan iskuullada primariga iyo caafimaadka asaasiga hoose labadaaba inay maamulaan xaq u leeyihiin marka iminka qaybta lagu soo dhaadhiciyada ay maamulaan waxay weli waa intii shaqaale hoosaadkii hadhow ilaa macallinkii inay maamulaan oo dhaqaalihiisa loo soo dhaadhicin doonaa ilaa neersinkii dhakhtarkii inay maamulaan baa ayaa imanaysa marka lana isku joojin maaye degmadii laisku xiri maayo kolba degmadii hawshaa u diyaar noqota maamul daadejinta waa loo soo dhaadhicin dhammaan inay maamulaan ilaa macallinkii ilaa dhakhtarkii inay maamulaan wax loo soo dhaadhiciyay noqonaysaa waana taan u soconno markaa inuu meeyarku wixii adeeg asaasi oo dhan ee degmadiisa ku yaalla inuu maamulo waa taa ujeeddada loo socda maamul daadejinta loo socday waa taasi si ay ummaddii adeeggaan u baahnayn u helno marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay dee guddoomiyahana mari hore de haddii la yarxam xamaniyo lahaa waa ninkii waxba ma qabtan lahaa imika iscadeeyey kulli 2 sano u dambeysay haddii la yarxaman jiray iscadeeyey waxaa malaa dee goliyo wixii baa waxaa malaa khilaafka waxa la dhaha khilaafka la dhahay nolosha unbu wax ka dhimaya waxba inooma kordhiyo dadku hadduu wax qurux badan danta la isku dilayaa ama lagu hadlaya inay dan noqoto danta guud laakiin ay noqon dan yaroo gaaroo ninka ku haysan mas-uulkiisa ee la doortay ee maanta hogaamiyaha inuu dan gaar ku qabsan lahayn danta guud kula dagaalamo oo ninka maayarka waxa laga golaha deegaanka inay siyaasad cad u dhiibaan guddoomiyaashooda u dhiibaan siyaasadda cad ma ku fulin dhahdaan war waxaan kuu dhiibnay taasoo ha maad fulin waad ku falgaro saa loo wajaho laakiin sidaa waxaad moodaa inuu si yaro wax yaroo iska yar hooso dana yaroo gaar inuu isku dayriiniyo saaxiib yar iyo qabyaalad yar iyo waxaynaan u baahnayn taa loo baahan waxaan u baahanahay inaan dalka loo wada adeego xil iyo mas-uuliyad lays wada saaro ilaahay baa weliba dee golayaasha deegaanku dee weliba waa inta dhaaratay ka mid yihiin somalilandna way dhaaratayna waa shaqaale caadiya madaxweyne laga bilaabay ilaa gola degaan dee kitaab bay gacanta saaran nin walba qof walba inuu kitaabkiisa isagoo cidna u turaynin inuu dee aakhiradiisa ilaashado wanaagsan oo wuxuu ku hadlaya iyo wuxuu maartay qof maartay ku toosinaya ay noqoto wax danta guuda oo ay noqonin wax madan gaar qofku ku yiriyo dee maartay wax laba qof ka dhaxeeya ay noqon waxaan garanayaa bariyaana golaha deegaanka aan ahayn deegaanka golaha deegaanka soo bilaabay tababar qiimo badan baan helno alla naxariista waxaa noo dhigi jiray ninkii gaariye oo dee abwaanimada isku darsaday iyo dee professor isku darsaday markaa wuxuu odhan jiray war markaas isku timaadaan isha bisadaas ku gashanina buu odhan jiray oo nin walba dee soo wax ka buuxaan ha isku imanin ee danta yar hor taalle ee degmada ka wada hadli buu odhan jiray isha bisad waa maxay buu yidhi wuxuu nin dhakhtara yuu tegay nin ishii wax ka noqotay dabeedna ninkii dhakhtarkii baa yidhi war isha waxba kama arko dabeedna ninkii dhakhtarkii ishii u bedelo guluub buu gashay buuri
إلا ليش أنا قلي إيش بصدق هيد بوري البيئة ماهين ما بعش كم أحد يقول صار بوري ما كانوا بس كوار أنتوا ده بلاستر كفر بوري ما كانوا دكتور والله حلوون أو حوارك ياه تشيرو مالك يا أخي مالك يعني كلام معروف مالك يقول إلا إيش بصدق لهم قلي بوري مرة عيني waxaynu qotay halays ma noqotay hadday wuxuu markaas ku timaadaan aday ninka qoladiisa ku muuqato wax kasto wanaagsan oo ka hadlayo hadaa u jeedo ishii bisada ku jirta buuri marka u jeedo waxa loo jeedaa marka la isku yimaado qalbi saliim oo wanaagsan la isku yimaado inaad degmada ka wada mas'uul tihiin aad isku timaadaan weyn marka wuxuu war kolkaas isku imanaysaan xisbigeena halkaas ka dhiga qabiyadeena halkaas ka dhiga saaxiibkii maartay danaha yar gaarka ka dhigo degmadan baad wada dhaartay dadka mas'uultiina degmada sidii loo hagaajinayay ka doodade degmada siyaasadda jeel baa tiine siyaasintoodu u dajisaan ku dabagala marka waxa loo jiray leadership skill training baa loo jiro 10 dawladood oo muctarif laga soo qabto waxa noqonay dawladii 10 oo Soomaaliya noqotay oo qaybta baa loo keentay bariga marka waxa la yiri ninka xildhibaanku كوب يتوين كوفيل بقشيء يا مروة سياسة دجية مروة حوي واني فاسيليتيترا أو مدي سكود حنا مروة غرغورية وغرقة بليه آخر كوا ليدر وضمانت يتجيا كوب يتوين كوفيل ما كان كل بكوفية دا ما أنت كورت على القشراته يعني كده حلوة لوجو بايه أو كل شيء ما أنت ما كده كوس 5 فاسيليتيتر باتاي وأنا دتك نقطة الحيدة لبضك على براها كلا على ساعة وين نقطة مرة سياسة دجسة مرة سياسة دي دجنسة سياسة ما دجنة سياسة دجية هاي سياسة دي دجسة هذانا ما كورميرس دوس على ساعة أو واحد دوس نكى سياسة دي هذا إلى اللي سيدو في شيء دوحي العدو ديبتين مسؤول هو ديبتين مرة وحلا هاي هذه أدوات باسنتين وأنا مرة قبل مارتي قدومية يا برصابك يا وأدبنا مهندقنا وأنا عرفنا وحيد قبتين أنت أيك بدنا وين كرجين هذا على كدو رجع بينه حلا هي جودهم شعب كريسو مجالي كنول عشورته بحية عشورته وواحد ذاك الوقت سيو واحد مددد كان إنه عشورته واحد دبا كطايا واحد عسلين بيسكو عسلين يعني عشورته وارد بحسان ما كان عشورته بحساننا دينا وحيد كسر نقضه وح ورسال ليدي سمايو والضفي على ليدي سمايو قرار ليدي سمايو حق بدو لدين لكن صورته كوري على الساحة جيف سطهم السنة كلا جربوا هل كي سنة مرة جربها أرضيات وحيد مقشين ووحي ركوبا أقل كذا وينا وعلى بنقلب ويني صد الدولار بدنا أما صدق بقول خلاص سومالنا أما لا بقول كتوم سومالنا واحد مددد كنا أنت هسه علص هذا علص كوما هم قد تسكب حصو لكن سمر كيسكو تكتل عكتاسي أنت أقل قبيلة كدستة ولا بحيان العقوين بالغرسة العكتاسي نوات وحكوته وحلقوه قبريه لكن سبحانه أنا ما أنت مجاوينكو إن كلابد هي واحد دامن العكت اللي بحيو ولما ذلك أنت ريسورس كذلك استعماشة شيخ كله شريف كله حلدبان كله أو ننعشوا تبين تحصل ما شقيرس ومسكين كنا إنه الباب كلام إحنا نرينه وعينه الضل قف كستوى اللي يقوليه مدحوريه اللي يقوليه عشورته مدحكوعين كان اللي يقوليه حلدبان كان اللي يقوليه وزير اللي يقوليه وحبذا ما دينا نقطتين وحلدبان يرغبان بيوم أنا حلدبان بانه محا إسكده تو يسوق بحيو ويقول إنك هو دورتي عشورة كقادم بولين تفرق سوق هذا تحصل معك اللي بعد هدي لو ما دورن دي ناس هيركين يو قبا عندك دورتات هذا عشوري اللي قايل لو ما دورن دي عشورته waxa lagu doortay inaad cashuurta la garab gasho siyaasadda cashuurtu ugu badan u saxeela degmada inaad xilbaan ka shaqeyn loo doortay laakiin laguma dooran inaad maalmo faylka inaad arkaa soo qato taado ninka waragiga doortay 10 sano ardayda lagu leeyahay sanadkan ka qaada gudoomiye ma noqonayso dhulkan la wada xeertay ee la iska wada xeertay waa in cashuurta laga qaado dawladda ka qaada weyn oo loo qofku hadduu 10 sano bixin 10 sano laga qaado sababtoo ah isaga xeertay oo yiri ummadda ka xidhadee qofka bini'aadamku xaq u leeyahay inuu meel helo meesha dhisto laakiin waxay nagu caaday noo noqotay guud ahaan reer Soomaaliland inuu beento dhul iska xeerto iib ugu tala galay waqti uu doonaa isaga xeertay hadduu badiyo hadduu yar yahayba waa inuu ardayda bixiyade
waxyaabaha lacagteena ku ma dawladda khasaaro ku qabta waxa weeyaan dhulkoo la wada xirtaba nin cashuur ka qaadaynin dee gurigii dhisnaaba dee laga yaabaa 60% ka gaadhaan oo 40 guri naga waliba sanadkii ka gaadhin waqtiga naga dhacaya waa in xitaa dhulka waa la ardayda marka dhulka ardayda laga qaado ninku dee xitaa wax dhulka uu qaali garanaya waa dhulka la haysanade haddii cashuurtii laga qaadayo xaq lagu lahaa lama haysteen dee qaaligan uu tagay maanta magaalooyinka waaweyn lagu qaali garoobeena ma tageen dee marka dawladdaas wax looga baahan yahay intay wax kale ku mashquulsan yihiin lacagtu agtooda taaltaalaaye intoo lacag si fiican u urursadaan bishaarka haddii dawladda kordhistaan dadkana wax u qabtaan